قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، سورة كهف أيام كجرنا ولي وحنو قصة دنبيين إلهي إنو تلمامي إنو سنقوب جو كدقين xaadirinina markii samaawaadkii arlada la abuuraayo xataa abuurka naftooda dadka wax dhumayeen inuusan cadud ka samaysanaynin maalinta oranaya uwaca shurakadeydii aad sheegateen way uwacayaan mana ajiibayaan buu yidhi ilaahay. dhexdoodana mawdiq iyo halaag baa la yeelay. mujrimiintii baad arkaysaa, mujrimiintii wara almujrimuuna annaara, naartii bay arkayaan, markaasay u malaynayaan inay ku dhacayaan, way yaqiinsanayaan macnaha. walam yajiduu canhaa masrifan, masrif iyo makaano iil iyo meel ay kaga noqdaan ay kaga gadoomaanna heli maayaan. walaqad sarafnaa, waan gedgedinay fii haada alqur'aani, qur'aankan ee kan ah linnaasi dadka waxaan ugu gedgedinoon ugu caddaynay min kulli mathalin, mathal kasta wax walba oo tusaale u noqon kara oo ay wax ku fahmi karaan baan ku soo celcelinay. wa kaana alinsaanu, insaankuna wuxuu ahaaday akthara shayin, shay badankii, jadalan, akthara shayin buu ahaaday, shay kan ugu badan, jadalan xagga dooda. insaankaa ugu dood badan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. heer wuxuu gaarayaa uu yidhaahda ilaahay subxaana wa tacaala waxdaaniyadiisa uu farageliyo. insaanku shay kasta kii ka dooda waaye ama wax dooda, insaanka shay dooda asaga ugu badan. ilaah wuxuu tilmaamayaa qur-aankan in lagu caddeeyey mathal iyo mahmah kaste. tawxiidka intaasoo mathal baa laga bixiyey, adduunka intaasoo mathal baa laga bixiyey, dadka ilaahay ku kufriyey intaasoo mathal baa laga bixiyey, dadka ilaahay rumeeyey saasoo kale. walaqad sarafnaa, waan caddaynay, waan gedgedinay oo waxaan ku soo celcelinay fii haada alqur'aani, qur'aankan ee kan ah gudihiisa, linnaasi dadka waxaan ugu caddaynay min kulli mathalin, mathal kasta, wax kastoo mathal iyo tusaale iyo mahmah u noqon kara. wa kaana alinsaanu, insaankuna wuxuu ahaaday akthara shayin, shay kan u badan, kan u badan shay ahaan marka la fiiriyo jadalan xagga dooda. asagaa aad u dood badan. maalin maalmaha kamida ama habeen yaa rasuulku wuxuu kusoo guurayey baa la yihi gabadhiisa faadimo iyo cali bna abi taalib oo ninkeedii ahaa. ayagoo hurda intuu albaabka usoo garaacay buu yihi istaaga, alaa tusalliyaa, miyaadan tukanaynin? salaada uu nebigu u toosinaya salaadii leylkay aheede, kaca ma tukanaysin miya? cali baa rasuulka u jawaabay oo yihi rasuulkii allow nafteena gacan allay ku jirtaa, xilligii alla na soo bixiyaan soo baxaynaayo iska tag. rasuulku waa sii jeestay baa la yidhi asagoo cajarkiisa garaacaya oraahdiisuna ay tahay wa kaana alinsaanu akthara shayin jadalan, wa kaana alinsaanu akthara shayin jadalan, wa kaana alinsaanu akthara shayin jadalan. saasuu asagoo dhahayo meesha markaa ka tegay. idan wax kasta oo mathala ayaa qur'aankan lagu tilmaamay oo lagu caddeeyey oo lagu soo gedgediyey. wamaa manaca annaasa, dadka kama mancinin an yu'minuu inay rumeeyaan id jaa'ahum, waqti uu u yimid alhudaa, hanuunka, oo wayastakfiruu, ay dembi dhaaf weydiistaan rabbahum, rabbigood wax ka manciyoo ka hor istaaganoo u diidan ma jirto, ilaa an ta'tiyahum, inay u timaada maahane sunnatu alawaliina, kuwii hore sunnooyinkoodii jidadkooda, aw ya'tiyahum
aw ya'tiyahum alcadaabu ama inuu cadaabkii u yimaado cadaabkaasoo qubulan cad cadaab qubulan ah asagoo mataqaanaa noocyaa haddii kala duduwan inuu u yimaado iyo dadkii ayaga ka horreeyay sunnadoodii taasoo ahayd inay inkireen oo ay diideen intaa kadibna la halaagay intaasaa markaa ka hortaagan wax kaloo ka mancinaya ma jiro waayo sunnada alla waxay tahay in allaala inta aayaadkii xaqa diida in la cadaabo horeyna way u dhici jirtay sunnadaas unbay sugayaan maahee way rumayn lahaayeen wamaa manaca annaasa dadka kama mancin oo kama hor istaaginoo uma diidana ay yu'minuu inay rumeeyaan aayaadka iyo diinkii qiyaamahaba id waqti jaa'ahum alhudaa hanuunka uu u yimid oo wayastakfiruu oo ay dembi dhaaf weydiistaan rabbahum rabbigood macnaha kama mancin inay ilaahay rumeeyaan oo istikfaar weydiistaan rabbigood ilaa an ta'tiyahum inay u timaado maahana sunnatu alawaliina kuwii horreeyey sunnooyinkooda aw ya'tiyahum alcadaabu ama cadaabkii uu u yimaado qubulan asagoo kala duduwan amase bayaan ahoo cad inuu markaa u yimaado wamaa nursilu ma dirin almursaliina mursaliintii rusushii la diray ilaa mubashiriina inay bishaareeyayaal yihiin oo ay u bishaaraynayaan dadkii alla rumeeyey wa mundiriina iyo ayagoo digaya oo uu digayo qofka beeniyey wayujaadilu aladiina kuwiina way doodeen kafaruu kufriyey oo gaaloobay bilbaatili baatil ayay ku doodeen liyudxiduu say u tirtiraan oo ay u buriyaan bihi baatilka alxaqa ay xaqa markaa ugu buriyaan waattakaduu waxay ka samaysteen ay ka dhigteen aayaadkayga iyo wamaa undiruu wixii loogu digaayay bay huswan jees ka dhigteen buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala waxyaabihii lagu cabsiinayo digniinta lagu siinayo cadaabka iska ilaaliya iyo qiyaamaa jirta iyo waa la isxisaabayaa iyo wixii loo tilmaamayoo dhan husu bay ka dhigteen iyo jees wamaa nursilu ma dirin buu yidhi ilaahay almursaliina mursaliinta waa nebiyadaa lasoo diray ma dirin ilaa mubashiriin ayagoo ah maahane ayagoo bishaaraynaya qofka ilaahay rumeeyey wa mundiriina iyo ayagoo digaya qof allaala qofka ilaahay inkiray oo xaqa iyo tawxiidka dhinac marayna inay cadaab xanuun badan uga digaan inta rumaysay tawxiid la timidna inay janno ugu bishaareeyaan intaasaa loo soo diray wayujaadilu aladiina kuwii way murmeen marka way doodeen kafaruu gaaloobay bilbaatili baatil bay ku doodayaan liyudxiquu say u tirtiraanay u buriyaan ama ay u simbirixiyaan bihi baatilka alxaqa inay xaqa markaa uga hortagaan darteed waattakaduu waxay ka samaysteen aayaadkaygii loogu talagalay in la rumeeyo iyo wamaa undiruu wixii looga digaayee la rabay inay ka cabsadaadayba huswan jeesjeesii wax lagu dahdaaho oo lagu husuwo ay markaa ka dhigteen waman adlamu yaa ka dulmi badan macnaha ma jiro axad ka dulmi badan miman ruux dukira la waaniyey la xusuusiyoo lagu dul akriyey biaayaati rabbihi rabbigii aayaadkiisa oo fa acraba ka sii jeestay canhaa aayadihii xaggooda wanasiya hilmaamay maa qadamad waxay hormarsatay yadaahu labadiisa gacmood inaa anagu jacalnaa waan yeelnay calaa quluubihim quluubtooda dushooda akinatan daboolo ay yafqahuuhu saysan u fahmin akina ayaa quluubtooda la yeelay saysan u fahmin nacid la nacay ay yafqahuuhu inay fahmaan aayaadkaa ilaahay ama calaa quluubihim akinatan daboolo ay yafqahuuhu saysan markaa u fahmin aayaadka wa fii aadaanihim dhagahoodana waqaran culeys baa la yeeliya dhegajig wain tadcuhum ayagoo sidaa ah qalbigoodii la daboolay dhagahoodii waqri iyo dhaga culays la saaray wain tadcuhum haddaad ugu yeerto ood ugu wacdo ila alhudaa hanuun iyo toosnaan falan yahtaduu hanuuni maayaan idan waktigaa abadan weligoodba hanuuni maayaan sababtu waxay tahay dhowr waxyaabood bay isku darsadeen midda koowaad dulmi bay la yimideen axadka dulmiga la yimaadana qof ka dulmi badan ma jiro oo ilaahay bay ku been abuurteen subxaana wa tacaala
aayaadkii alla marka lagu waaniyey ayay haddana ka sii jeesteen. waa cudurka ugu xun oo dulmigii edabdarrada la galana midda u weyn. qofka mar allaala marka aayaadka ilaahay la xasuusiyo inuu raacaa loogu talagaloo lagu dul akriyo. cibaaduraxmaan maxaa lagu yaqaanaa? waaladiina idaa dukiruu biaayaati rabbihim lam yakhiruu calayha summan wa cumyaanan. marka aayaadka ilaahay lagu dul akriyo ma jeexaan, balse way dhegaystaan, way raacaan, way rumeeyaan, wayna ku camal falaan. ilaah wuxuu tilmaamayaa axadka dulmi badan inuusan jirin, kana edab darro badan qof inta la wacdiyey oo la waaniyey oo aayaadka ilaahay inta lagu kor akriyo la xasuusiyey haddana isaga jeestay, nacay oo raaci waayey, diiday oo haddana markaa inkiray. waman adlamu yaa ka dulmi badan. macnaha ma jiro axad ka dulmi badan miman ruux dukira la xusuusiyoo la waaniyey biaayaati rabbihi, rabbigii aayaadkiisii lagu xusay oo fa acrada canhaa kasii jeestay. haddana aayaadkii ilaahay ee la rabay inuu raaco isaga jeestay. waa nasiya hilmaamay oo iloobay maa qadamad waxay horumarsatay yadaahu gacmihiisa. gacmaha wuxuu ka hormarsaday waxaa loola jeedaa camalkii xumaa ee markaa uu qabtay. waa iloobay meeshuu ilaahay ka xasuusan lahaa oo xumaantii uu galay ka tooba keeni lahaa oo ilaahay usoo noqon lahaa oo khayrkii wanaaggii samayn lahaa waaba iska hilmaamayba. intuu aayaadkii ilaahay ka jeestuu haddana iloobay maa qadamat yadaahu. innaa anagu jacalnaa waan yeelnay ilin axad xaaladiisu saas ay tahay nin hanuun doon ahoo rabbi soo dumaayaa ma aha. qofku markuu iishuu alla iilaa, qofku markuu xaqa ka leexdo ilaahay sii leexiya subxaana wa tacaala. sidaa darteed buu ilaah yidhi markay xaaladoodu sidaa noqotay, axadka edab dara badanna la waayey, aayaad alla la xasuusiyey ka jeesteen, gacmahoodii xumaantay qabatay ay iloobeen. innaa jacalnaa calaa quluubihim, intaa kadib annagana quluubtooda waxaan yeelnay akinatan dabool. dabool ayaa la saaray oo quluubtooda haddii mar la qufulo oo la daboolo, bal tabaca allahu calaa quluubihim. waxay fahmayaan ma jira buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala ilaa wax yaroo adduunka axwaalihiisa ka mid ah maahane. quluubtoodii akina iyo dabool baan samaynay an yafqahuuhu, nacid la nacaya inay fahmaan xaqii iyo aayaadkii. akinatan an yafqahuuhu, saysan u fahmin aayaadkaa. wafii aadaanihim, dhagahoodii xaqa lagu maqli lahaana waqran dhegajig baan samaynay buu dhahay ilaahay. waqriga waa culays. qofku markuu maqalka aad uga fog yahay uu si fiican wax u maqlaynin, dhagaha uu ka jigo oo waxa in xoog loogu celceliyo kor hadalka loogu qaado maahane si kaluusan markaa wax ku fahmaynin. dhagahoodana saasaan markaa ka dhignay. idan qof qalbi daboolan, dhagahana culus ka qaba, wa in tadacuhum, haddaad ugu yeerto ood ugu wacdo ila alhudaa, hanuunka xaggiisa, aayaadka iyo tawxiidka iyo xaqa iyo diinka haddaad xaggiisa ugu wacdo, falan yahtaduu, hanuuni maayaan. idan waktigaa abadan weligood hanuuni maayaan buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. say u hanuunayaan quluubtay ka daboolan yihiin, quluubtuu ilaahay ka qufuray subxaana wa tacaala. mar allaala markay xumaan galaan way sii iloobayaan meeshay tooba keeni lahaayeen. aayaadkii alle marka lagu akriyo qalbigooda nadiifin lahaa. alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub, tii haddana way ka sii jeesteen oo way naceen. dhagahoodii culays iyo waqri iyo dhegajig baa la saaray. idan maantoo dhan uwac oo u sheeg, wain tadcuhum ila alhudaa falan yahtaduu, hanuuni maayaan. idan waqtiga xaaladoodu hadday sidaa noqotay abadan weligood. wa rabbuka rabbigaana algafuur, waa la dembi dhaaf badan. wa rabbuka rabbigaa algafuur, alla gafuur ahoo dembi dhaaf badan waaye. duraxmati naxariisna u saaxiib ah. ilaahii gafuurkaaha ee dembi dhaaf ka badnaa, haddana naxariista u saaxiibkaabay ka faa'iidaysan waayeen. low yu'aakhiduhum, hadduu qaban lahaa dadka bimaa kasabuu, waxay kasbadeen oo xumaan ah, la cajala, waa dedejin lahaa ilaahay lahum ayaga alcadaaba, cadaabkaa loo soo dedejin lahaa. idan qof aan xumaan samaynin ma laha. ummadii waxay galeen waxyaabihii lagu qaban lahaa oo cadaab ah, laakiin intaa waxay ummadda adduunka u joogaan ilaahayaa gafuur ahoo dembi dhaaf badan.
haddana naxariis badanoo addoommada aan cadaabka ku soo dedejinin. hadduu ku soo dedejin lahaa way noo imaan doontaa ama waan soo marnaye maa taraka calaa dahriha min daaba, hal daabadna ilaahay adduunka ugama tagay subxaana wa tacaala. dhammaan waa la baabi'in lahaa, dhammaan waa la halaagi lahaa, axad la dhaafi lahaa ma jirin buu yidhi ila subxaana wa tacaala. wa rabbuka algafuur, rabbiga alla gafuur ahoo dembi dhaaf badan waaye, rabbiga alla dembi dhaaf u saaxiib ah waaye. wa rabbuka algafuur duraxmati, raxmadna u saaxiib ah. ilaahay aad buu u naxariistaa subxaana wa tacaala. addoommadiisa naxariista uu siiyo aad iyo aad bay markaa u weyn tahay. raxmadiisa iyo qadabkiisa raxmadiisaa sarraysa ilaah subxaana wa tacaala. markasta ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa in laga faa'iidaysto ayaa marka iyo dadka ummadda la amraa. wa rabbuka, rabbigaana rasuulkii allow algafuuru, waa alla gafuur ahoo dembi dhaaf badan, duraxmati, raxmad iyo naxariisna u saaxiib ah. low yu'aakhiduhum, hadduu u qaban lahaa dadka, low yu'aakhiduhum, ayagu hadduu qaban lahaa ee uu ku qaban lahaa bimaa kasabuu, wixii ay kasbadeen, la cajala waa degdegi lahaa oo waxaa kusoo degdegi lahaayoo rabbi kusoo dedejin lahaa lahum ayaga alcadaaba, cadaabka. mayagaa waktigaan cadaab ka maqnaan lahaa. sababtu waxay tahay cadaabkii ayaa ilaahay subxaana wa tacaala xilligiisiina dhiman yahay, naxariis darteedna looga haayaa. in dembi dhaaf badanana ilaahay yahoo intaa waxaa la leeyahay amay tooba keenaan, amay soo laabtaan, amay ilaahay usoo rujuucaan, amay khayrkii wanaagga badiyaan, amay dad fiican noqdaan. intaasaa laisleeyahay. markaasuu rabbi subxaana wa tacaala u kaadinaya, u sugaya oo aan cadaabka lagu soo dedejinaynin. low yu'aakhiduhum bimaa kasabuu la cajala waa dedejin lahaa lahum ayaga alcadaaba. bal lahum, bal iska daaya lahum ayaga mawcidu, mawcid iyo makaanu wacdi bay leeyihiin iyo ballan. lan yajiduu, aysan helaynin min duunihi sukadiisa maw'ilan, meel la iisho, meel la iisho, meel la galo. maw'ilku waa meel lagu dhuunto oo ilaahay sukadiisa aysan markaa helaynin. mawcidka haddii la gaaro waa laysku imaanaya. axad meel kale u baxsan kara iyo axad maw'il kale aadayaa markaa ma jiro. saa darteed baa waxaa kaliftay in ilaahay mawcid iyo wakti uu markaa u sameeyo cadaabka. haddii la gaarana qof ka maqnaanaya uusan markaa jirin. wa rabbuka, rabbiga algafuuru waa alla dembi dhaaf badanoo duraxmati, raxmad iyo naxariisna u saaxiib ah. low yu'aakhiduhum, hadduu u qaban lahaa dadka bimaa kasabuu, waxay kasbadeen oo dunuubtii macaasi iyo dembi ahna, la cajala waa dedejin lahaa lahum ayaga alcadaaba. bal lahum, bal iska daa inuu ilaahay cadaab kusoo dedejiye. lahum waxay leeyihiin mawcidu, mawcid, makaanu ballan bay leeyihiin buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. mawcid ayaa jira iyo wakti loo mawcidoo loo ballamay. lan yajiduu, aysanna helaynin min duunihi sukadiisa maw'ilan, meel la iisho ama la galo. wa tilka taa alquraa ee qaryada ah, ama wa tilka alquraa taa ee qaryada ah, ahlaknaahum waanu halaagnay. lamaa dalamuu, markii ay dulmi faleen, sida kuwan hadda ay dulmiga u sameeyeenay diinta alla uga jeesteenay ilmaameen gacmahooda wixii ay hormarisay. saasoo kale ayaa jiri jirtay qaryooyin. intaa la tilmaamayo wa tilka taa alquraa waa qaryaalo, waa qaryooyin, waa qaryo ummadooda. wa tilka taa alquraa ee qaryada ah, ahlaknaahum waanu halaagnay. lamaa dalamuu baan halaagnay markii ay dulmiyeen. wajacalnaa, waxaan yeelnay linahlikihim, makaanu halaagoodii ama halaagoodii laftigiisiiba mawcidan, mawcid baan u samaynay. marka sababta dadkan hadda ayagoo dulmi falay oo dulmigii laysku cadaabi lahaa oo halaaga ku imaan lahaa mutaystay ay adduunka u joogaan, wax kale ma aha. kuwaasay ka fiican yihiin iyo kuwaasuu ilaahay ka doortay ma aha. sababtu waxay tahay kuwaan waktigoodii bay dhammaysteen, makaankii mawcidkee loogu talagalay bay gaareen, taasaa lagu halaagay. kuwaana waktigooday sugayaan, kuwaana waktigooda oo aan la gaarin cadaabku imaan maayo. ilaahayna ma soo dedejinayo subxaana wa tacaala. haddii waktigiisi la gaaro la akhiri maayo oo dib markaa loogu dhigi maayo wayo macnaha. wa tilka alquraa, wa tilka taa alquraa waa qaryaalo, ahlaknaahum aanu halaagnay.
وتلك تاء القرى قريالك وأهل كودية أهلكناهم ونهلاكني لما ظلموا markii ay dulmi faleen ayaan halaagnay wajacalnaa waxaan yeelnay limahlikihim halaagoodii ama makaanu halaagoodii mawcidan baanu u samayno wacdi iyo wakti ballan ahoo la mawcidaa jiray taasay dhammaysteenay gaareen taasaa keliftay in la cadaabo oo cadaabku markaa u yimaado amaa kuwaana dib loogama dhigin jacayl la jecel yahay kuwaana looma halaagin necab la necab yahay isku sunnay ku socdaan kuwa waktigoodii bay dhammaysteen kuwana way dhammaysanayaan ayagoo waktigoodii dhammaysaninna wax dhibaatoo la gaarsiinayayo markaa ma jira wa rabbuka rabbigaa algafuur waa la dembi dhaaf badan oo biraxmati raxmad u saaxiib ah low yu'aakhiduhum hadduu u qaban lahaa dadka bimaa kasabuu wixii ay shaqaysteen ay kasbadeen lacajala wuu dadejin lahaa lahum ayaga alcadaaba cadaabkoo xilligaanba maba joogi lahaynba waay wixii lagu cadaabi lahaa gacantii ku haystaan wayna sameeyeen wayna muteysteen in la cadaabo laakiin maxaa dib loogu dhigayaa bal iska daa lahum ayagu mawcidun mawcid bay leeyihiin waktigoodii bay sugayaan mawcidkii alle la gaaray kadib dhigi maayo kana soo horumarin maayo layajiduu aysan helaynin min duunihi sukadiisa maw-ilan meel la galay iyo meelay u iishaan wa tilka alquraa kaa qaryada ahna ahlaknaahum waanu halaagnay lamaa goortii dalamuu ay dulmi faleen wajacalnaa waan yeelnay limahlikihim makaanu halaagoodii mawcidan iyo halaagoodiiba mawcid iyo wakti ballana ayaan u samaynay nebi muuse calayhi salaam baa reer bani israa'iil khudbad u akriyey baa la yidhi mar allaale markuu khatiib u sameeyuu u khudbeeyey nin baa su-aal weydiiyey oo yidhi yaa muusa ma jira axad kaa cilmi badan yaa kaa cilmi badan markaasuu yidhi maya ma jiro qof iga cilmi badan yaa dadka u cilmi badan qaala aniga buu dhahay nebi muuse calayhi salaam markaasaa ilaahay canaantayoo waxaa lagu canaantay wakti uusan cilmiga ilaahay u dadbin ama u leexinin subxaana wa tacaala waa loo soo waxyooday addoonkeena khadir ah ayaa kaa cilmi badan baa la yidhi nebi muuse calayhi salaam addoonkeena khadira ayaa kaa cilmi badan fartuu qaniinay nebi muuse wuxuu yidhi seenku gaari karaa ninkaa iga cilmi badan nebi muuse calayhi salaam waxa uu ka mid yahay waa kaliimkii ilaah subxaana wa tacaala wakallama allahu muusa takliima waa ninkii ilaahay doortay yaa muusa in istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaami dadkan kaala doortay risaalaadkeygii kalaamkeygii faqud maa aataytuka wakun min ashaakiriin intaa waxay tilmaamaysaa sharafta uu leeyahay haddana wuxuu rabaa in qofka cilmi badan baa loo sheegee inuu cilmi doonto uu nebi muuse arday noqdo uu haddana xiraysto macallina uu markaa raadsado yuushic bin nuun wiil la yidhaahdo xirtiisa ka mid ah ayaa raacay markaasaa la yidhi waxaad qaadataan migtal iyo dembiil ku qaata baa la yidhi malaay ama kalluun meel allaale meesha aad ku weysaan meeshaasuu ku jiraa ninkiiye kolkaasay dhaqaaqeen nebi muuse calayhi salaam iyo shaabkiisii qaadinkiisii yuushic bin nuun wuxuuna ballan ku qaaday nebi muuse calayhi salaam inuusan istaagaynin ilaa uu gaaro majmaca albaxrayn labada badood meeshay ku kulmaan waa badda faris iyo ruume amase xuquban iyo zaman dheer inuu socdo ilaa maxaa lagu fasiraa 40 sano oo kale ilaa uu socdo inuusan istaagaynin amase uu ka gaaro meesha ay ku kulmaan labada badood meesha marka waxaa nooga bilaabanaysa qiso nebi muuse calayhi salaam iyo khadir ama nebi khadir dhex martay oo aad iyo aad u cajiib badan in badanna qur-aanka wax badanna socon doonta sidaa darteed ayaa nebi muuse calayhi salaam wuxuu ummadda u falay amase u tilmaamay una jeexay cilmi raadinta khayrka ku jira wanaagga ku jira iyo sida markaa looga baahan yahay inay dadka aad iyo aad markaa u raadiyaan qisadaasaanu markaa gelaynaa waxayna ka mid tahay qisooyinka suuraddu ay markaa tilmaamtay amase markaa ilaahay uu ku sheegay subxaana wa tacaala balse beritoode ama habeen dambe haddii rabbi yidhaahdaanu qisada bilowgeeda arki doonnaa in sha allahu tacaala walaqad sarafnaa waan caddaynay ama waxaan kusoo celcelino kusoo gedgedinay fii hada alqur'aani qur'aankan ee kan ah linnaasi dadka waxaan ugu soo celcelinay min kulli mathalin mathel kasta
masel kastaan wax uga tilmaamnay iyo mahmaah kasta iyo wax kastoo tusaale ah. wa kaana alinsaanu insaankuna wuxuu ahaaday akthara shayin shay kan u badan buu noqday jadalan xagga dooda. wax dooda insaanka u badan. wamaa manaca annaasa dadku kama mancinin an yu'minuu inay rumeeyaan id waqti jaa'ahum alhudaa hanuunkii uu u yimid oo wayastakfiruu rabbahum rabbigood ay dembi dhaaf weydiistaan wax ka manciyoo ka hor istaagoo u diiday ma jiro ilaa an ta'tiyahum inay u timaado maahana sunnatu alawaliina kuwii hore sunnadooda aw ya'tiyahum alcadaabu ama cadaabku uu u yimaado qubran asagoo kale nooc ah. wamaa nursilu almursaliina mursaliintii lasoo dirayna ma dirin buu yidhi ilaahay ilaa waxaan u dirnay mubashiriina inay bishaareeyaan inta rumaysay wamundiriina iyo inay digaan in allaala inta alla diiday. wayujaadilu aladiina kuwiina way murmeen oo way doodeen kafaruu gaaloobay bilbaatili baatil ayay ku doodeen liyudxiduu say ugu buriyaan bihi baatilkaa alxaqa xaqa waاtakaduu waxay ka samaysteen aayaatii aayaadkeygii wamaa undiruu wixii loogu digaayay bay huswan jees ka dhigteen. cadaabkii lagu cabsiinayay oo loogu digaayay kaana jees bay markaa ka dhigteen. waman adlamu yaa ka dulmi badan yaa ka edeb darro badan miman ruux dukira la waaniyey biaayaati rabbihi rabbigii aayaadkiisa. uma intaa kadib aayaadkii alla ayaa lagu waaneeyey oo fa acrada ka jeestay dheh canhaa aayadihii xaggooda. wanasiya hilmaamay oo iloobay maa qadamad waxay hormarisay yadaahu gacmihiisa. ina anagu jacalnaa waan yeelnay calaa quluubihim quluubtooda akinatan daboolyo an yafqahuuhu ma cid la nacay inay xaqa fahmaan darteed ama saysan u fahminba. wa fii aadaanihim dhagahoodana waqaran culays baan sareernay oo dhagahoodana dhegajig iyo wax culusoo wax aysan ku maqlayn ayaa la saaray. waxa qalbiga laga daboolay dhagahana looga jigeeyey waa waxa khayrkii wanaaga intaasuu qalbigooda u degay dhagahanaysan ku maqlin. amaa xumaana way maqlaan wayna ku fikiraan. wain tadcuhum haddaad ugu yeerto ila alhudaa hanuun xaggii falan yahtaduu hanuuni maayaan idan waktigaa abadan weligood. wa rabbuka rabbigaana algafuuru waa la dembi dhaaf badan oo duraxmati raxmad iyo naxariis u saaxiib ah. low yu'aaqiduhum hadduu ku qaban lahaa dadka bimaa kasabuu waxay kasbadeene qabsadeene camal ay sameeyeenoo lagu cadaab muta ah lacajala lahum alcadaaba cadaabkii wuu kusoo dedejin lahaa ilaahay. cadaabkii waa kusoo degdegi lahaa. balse lahum ayagu mawcidun mawcid iyo makaanu ballan bay leeyihiin iyo wakti ballaneed. lan yajiduu aysan helaynin min duunihi sukadiisa maw'ilan meel la iishoo la galo. wa tilka alquraa taasi qaryada ah ahlagnaahum waanu halaagnay. lamaa goortii dalamuu ay dulmi faleen ayaan halaagnay. wajacalnaa waan yeelnay limahlikihim halaagoodii ama makaanu halaagoodii baan mawcid iyo ballan u yeelnay buu dhahayo wakti ballan uusan jirin ma ahayn oo iska imaanaye mawcid buu lahaa. mawcidkii bay gaareen. mawcidkii baa lala sugay. mawcidkii buu ilaahay markii ay gaareen ku halaagay subxaanahu wa tacaala. wain qaala muusa lifakaahu laa abraxu xataa abluga majmaca albaxrayn aw amadiya xuquban wabillahi tawfiiq. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.